iga guddoon salaankaaga timid qalbi jecel in maray ahaataba maalin uu nolosha kula wadaago haddii uu allaha awoodda leh raalli ka noqdo fadlan hadalkayga iyo sanaab kula noqon waan ogahay weji ahaan iyo magacahaan waad ii taqaanaa balse aqoon intaas dhaafsan ima lihid hase yeeshee waxay doonto ha noqoto waxaan kaa codsanayaa inaad si taxaddar la ii dhegaysato adigoo raalli ah oo mahadsan maxaa yeelay fariintan adigay ku khusaysaa run ahaantii abbaayo aniga waxaan kaa helay aragtidii ugu horraysay aan ku arko anigoon aqoon kuu lahayn balse dadaal dheer ayaan sameeyey taasina runtii ma ahayn shaqo fudud oo cid walba iska samayn karto marka laga reebo dadka daacadda ah sida aniga oo kale waxaan ku istaagi jiray dariiq walba oad marayso si aan ugu milicsado aragtidaada dabadeed waxaa igu bilowday jacaylkaaga maxaa yeelay waxaan awoodi waayey inaan kula hadlo anigoo haysta fursado badan oo aan kuula hadli karo ayaan haddana cabsiyo xishood awgood kuula hadli waayey soomaalidu waxay dhahaan jacaylka dhabta ah wuxuu ku lifaaqsan yahay cabsi iyo xishood alla ilaahay waa run middaas anigaa markhaati ka ah sidaan kuu sugayo oon isu leeyahay maanta la hadal adigoo bidhaan wacanoo haybaddaada la yaabo ninkii ku arkaba inuu kaa daba dhaqaaqo mooye aanu dhankaaga jiisan karin ayaad dhagtayda martaa ilaan warba iimahaysidoo xaaladdan ku suganaya maba ogid sidii inaan ahay ruux mesh taagan iyo sidii inaan ahay loox kuuma kala socno alla ciil badanaa dabadeed markaan dib kuu soo eegana meel unbay goodoo qalbiga dhag wadnaha atatata muxogga meel iifiyow ma lahan si qoto dheer ayaan kuu jeclaaday waxaan gaaray heer aan wax cuni waayo hurdana iska baddaa warkeeda waxaa mar walba i hortaagan muuqaalkaaga waxaan jeclahay inaan kula kulmo oon kuu bandhigto jacaylkayga balse sideen kula kulmaa hal miyay ii tahay inaan maalin iyo habeen albaabkiina dul meeraysto lacalla haddii ay arkaan hooyadaa ama aabbaha ama walaalahaaga maxaan dhahaa ma waxaan dhahaa hooyo ama aabbo ama walaale waxaan jeclahay gabadhiinna dabadeed hay soo ceyriyaan sidii eegiyoo kale ceebay tacaal taasaa ugu daran haadhi abbaayo bal fikir adiguba haddaad garasho leedahay anigu waxaanahay ruux dadtaa u biseeloo u bukooday waxaan doonayaa ma aha sumcad iyo lacag iyo wax la mid ah anigu waxaan doonaya waa adiga waxaan kaa doonaya waa mustaqbal haddii aan ku helana wax kale ma rabo abbaayo haddii aad igu gacan seerto waxaan gelayaa murugo midda ugu xanuunka badan jacaylkaagana uma dhimanayo balse wuxuu ii dhexaysiinayaa nolol iyo geeri wuu isilcinayaa wuu i xanuujinayaa balse kama nuugayo jacaylkaaga